tan iyo markii uu soo shaacbaxay caabuqa COVID-19 oo ah musiibo caalami ah waxaa lagu tilmaamay mid ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee dunida la soo darsay. xanuunkan safmarka ah ayaa guud ahaanba carqaladeeyay bulshada, dhaqaalaha iyo dhan kasta oo nolosha ah. haddaba hay-adda maxalliga ah ee SWDC oo kaashanaysa UN Women oo ah hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan sidii ay ragga iyo dumarku fursado siman u heli lahaayeen, iyo dowladda Japan ayaa magaalada Kismaayo tababar ugu qabatay 75 dumar ah oo isugu jira ururada haweenka, horjoogayaal matalayay qoysaska barakacayaasha ah, kuwa dalka dib ugu soo laabtay, xubno ka tirsan haweenka dallada nabadda iyo gabdhaha u ololeeya arrimaha bulshada. Seminaarka oo ku saabsanaa kor u qaadidda iska ilaalinta cudurka iyo waxyeeladii uu ku reebay bulshada ayaa lagu qabtay Hotel Maka ee magaalada Kismaayo. waxa uuna socday 4 cisho, iyadoo furitaanka ay goobjoog ahayd wasiirka wasaaradda haweenka, arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka Jubbaland, Marwa Cadar Ismaaciil Cabdullaahi. Marwa Cadar oo la hadashay ka qaybgalayaasha ayaa ku boorisay in taxadar badan lala yimaado. geesta kale, wasiiradda ayaa xustay in xilligii uu socday COVID-19 shaqaaqada qoyska iyo xadgudubyada ka dhanka ah jinsiga ama waxa afka qalaad lagu yiraahdo GBV-ga uu kor u kacay. Saharo iyo Falxado oo ka mid ahaa ka faa'iideystayaasha tababarka ayaa ka waramaya waxa ay ka kororsadeen. maanta ma sha Allah waxaan faa'iideysanay wax ku saabsan COVID-19-ka. taas waxay cadaan u tahay horta waayadan dambe in dib looga dhacay la ilaaway bulshadana ay ilaawday wax ku saabsan COVID-19. maanta waxaan ogaanay inay jiraan wadamada dariska ama wadankeena kiisas yar yar oo soo cusboonaaday ku saabsan COVID-19-ka. maanta waxaan faa'iideysanay in maalmaha soo socdana iyo sanadada soo socda in la taxadiri karo sida looga hortagi lahaa, sida u faafi lahaa iyo waxyaabahaas oo dhan. saameynta u yeeshay waxaa ka mid ah COVID-19-kii dhaqaalihii oo kale hoos u dhacay, isku socodkii iyo safaradii oo yaraaday. isku socodkii waxay saameysay marka in income-ka magaalada ay yaraatay. income-kaasna wuxuu saameeyay in wixii hore u yaalay inay qaaliyoobaan, dhaqaalihii horena ay hoos u yaraadaan. marka saameyn oo dadka dhaqaale ku yeelatay, qoysaska qaarkood burbur ku dhacay, tahriib oo kale taa dhacay iyo waxyaabo la mid ah. wixii oo dhan marka saameynta dhankaas ku yeeshay. dhanka kale tacadiyo sameeyay oo ah qoysaska marka iskhilaafeen, burbur, dagaal qoysaska dhexdooda uu saameeyay. waxaa jira kiisas kale oo tacadiyo oo ka dhex dhasho oo kufsiga uu ka mid yahay. maxaa la dhihi jiray dagaalada oo kale ay ka mid maadaama jaanis la helay goobihii waxbarashada fasax yihiin, goobihii shaqada fasax yihiin. waxaa kaloo yaraatay fursadihii shaqo yaraatay. meelo qaarkood way soo xirmeen, albaabada la iskugu soo xiray, dadku waxay noqdeen shaqo la'aan iyo inay gurigii dhex fariistaan. taas waxay sababtay dhanka maskaxiyan hataa dadka inay isla hadlaan, stress ku dhaco. waxa soo dhanaa marka ka faa'iidnay aad iyo mahadsantiin. COVID-19 wuxuu ahaa horta wax ummadda islaamka oo dhan ka argagaxiye dal iyo dibadba. waxyaabaha uu sabab waxaa ka mid ahaa dhaqaale la'aan, waxaa ka mid ahaa qoysaska oo burburo, waxaa ka mid ahaa kala shaki ka dhex imaada dadka dhexdooda, waxaa ka mid ahaa yani socodka dadka oo yaraado oo hataa haddii aabaha iyo hooyadaada ay xanuunsan aan soo booqan karin, waxaa ka mid ahaa meedkaaga oo arkaysid aadan aasan karin. waxyaabaha ugu yaabka badan u ahaa qofkaaga cudurkaas ku dhacay goob caafimaad geesa maalinta geesara kuugu dambeeysa wuu dhintay ayaga la aasay dadka caafimaadka loo tababaray. marka waxyaabahaas waxyaabo ka daranaa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa ganacsiga oo hoos u dhacay sababtoo ah dadkii haddii dhaqaalihii waayeen ganacsatada naftooda miciishada laga gadan waa hoos u dhac ayaa ku imaaday. shaqo la'aan oo kale wuxuu sababa dhanka GVV-ga qoysaska in yani uu maxay ahayd shaqaaqa oo ku dhaxmaado iska hor imaado dadka oo magaalada lagu dhex jiri jiray hal guri inta la iskugu imaado. marka dhibaatada uu coronavirus leeyahay wax yar ma ahan. ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu intaas noogu joojiyo sababtoo ah dad islaam aan ahay ilaa hadda wuu jiraa laakiin dadka ma fahansano. isku soo wada duubo, Soomaaliya waxa ay 16 Maarso sanadkii 2020 ku biirtay
wadamo badan oo la tacaalaya COVID-19 waxaana xusid mudan in talooyin degdeg ah oo isxigxiga la qaaday si loola dagaalamo loona joojiyo faafidiisa. Cabdulaahi Xuseen Kilas, telefishinka caalamiga ah ee Ariel, Kismaayo.